qodobka xigay waxa weeyaan salaada ciida markii la dhameeyo maalinka ciida waxa laynoo ogol yahay inaynu damashaadno oo la farxo dadka laga farxiyo carruurta laga farxiyo yani tawsiic loo sameeyo ay diinteenu ogoshahay xayla nabigeenu sallallahu alayhi wasallam saasuu ku yiri soo ma ogid maalinka inay maanta inay maalin ciida noo tahay markii Abu Bakar miyuu uu labadii gabdhood يعني عياري وقول تابو كوير النبي صلى الله عليه وسلم سوما وجد ما أنت إن عيد النديته مركب ولا دماش هذه كرا حفلة ده الله سميسن كرا والله فرحي كرا هل قضب باسمه من لجو براروه قضب كاسي وحوي هاي وإن دماشات كعيد لجا إلى ليه وحي شريعة جديدة آد بين مالمها وبضنت هاي شيطان كي حلنا على السود داي وآدو حناقصن وعيل بدن قبه saas daradeed argoosigiisa wuxuu ka bilaabanayaa maalinta ciida Soomaaliya arag maalinta ciida dadkiisa muxuu ahay ramadaankii soomayay ee salaadayay ee cibaadaysanayay ee khatarta ahaa maalinka ciida hadii la gaabado munkaraadka dhacay maxaa xafalaad ah oo khariban maxaa curyi ah maxaa ikhtilaat ah maxaa muusig ah maxaa munaasabad khariban ah shaytaan maalinkaas uu faa'iideysta wax badan oo horay loo shaqaystay oo khasnada la gashaday oo khayraad ahayo dadku shaqaysteen buu ka daba tagaa markaas uu wax badan ka khariba oo macaasi ka daba geeya arinta marka waa in lagu baraarugo lagana waaniyo oo lagala hadlo muxuu ahay caruurta iyo muxuu ahay dumarka iyo dhalinyarada iyo arinta waa in la iska baraarujiyo oo cibaadaadkii aan yani wax weyn ramadaankii aynu soo shaqaysanay dhaawac weynaysan oo inaan gaarsiino way macna oo inaan macaasi ka daba geeyno